qisadani waxay ku dhacday wiil dhalinyaro ah. Wiilkani dhalinyarada ah waxa uu ka imaaday safar dalxiis. Waxa uu joogaa gurigiisa waxaana ka soo noqday safarkii dalxiiska ahaa. Wuxuu iska fadhiyay gurigiisa waxaana fiirinayay boorsada safarka uu kala imaaday. Wuxuuna soo xasuustay in hadiyado hore uu soo qaatay. Boorsadiisa ayuu furay waxaana raadinayay hadiyada iyo waxa ay tahay. balse laakiin nasiib xumo waxa uu ogaaday hadiyada inuu soo iloobay oo uu ka soo tagay. balse laakiin boorsadiisa waxa ka soo baxday cayayaan yar gurigan ay dul orordaysay. asigana intuu xanaaqay ayuu bilaabay inuu ceyrsado oo isku dayay cayayaankaas yar inuu dilo. balse nasiib xumo waa uu dili waayay, waa uu daalay. wuxuu iska fadhiistay boorsada agteed wuxuuna islahaa xoogaa kadib raadi cayayaankaas ay guriga ka dir. wiilkaasi oo iska fadhiyo ayuu wuxuu dareemay qoortiisa inay wax saaran yihiin oona wax ku dul soconayo. isla markii wixii ayaa qaniinay, dharbaaxay ayuu dhegtiisa ku dhuftay wuxuuna arkay cayayaankii yaraa inuu asiga qaniinayba. kadib waxba muusan ka soo qaadin, cayayaankii dhintay ayuu iska tuuray wuxuuna go'aansaday inuu iska seexdo. saacadii habeenimo markii ay maraysay ayuu wuxuu dareemay kuleyl iyo cuncun dhanka xabadkiisa. xabadka ayuu xoqay wuxuu soo aaday dhanka suuliga wuxuuna isku dayay inuu fiiriyo xabadkiisa, balse laakiin wuxuu arkay arrin aad iyo aad u argagixisay. xabadkiisa waxa uu ku arkay nabaro yaryar oo shucaac ah. intuu naxay ayuu iska jiifsaday. waxa uu jiifay muddo dheer ilaa hal maalin. habeenkii kale ayuu soo kacay wuxuu dareemayaa cuncun zaa'id ah iyo kuleyl iyo waxyaabo badan oo ka dareemaya dhanka xabadka. xabadkiisa ayuu fiiday mar kale, balse laakiin marka hore way ka dumantahay. aad ayuu u naxay, aadna ayuu u argagaxay. calooshiisa wuxuu ka arkay nabrihii waaweynaa oo isku bedelay dulduleel. wuxuuna ka dareemay in wax ka dhaqdhaqaaqayaan oo kale. run ahaantii aad iyo aad ayuu arrintaas u argagaxay wiilkii yaraa. waxa uu dareemay xabadkiisa inay ka soo baxayaan cayayaano tiro badan. aad iyo aad ayuu u fajaxay, waxayna ahayd xilli saqdi caawinimo ah. wuxuu isku dayay inuu aado isbitaal iyo wax la mid ah, balse laakiin waa uu awoodi waayay. jirkiisa si degdeg ayuu isku bedelay. jirkiisa dhan wuxuu noqday wax aanan malaysan karin. qolkii ugu degnaa waxa uu noqday qol nooc kale ah. cayayaanka jirkiisa ka soo baxay ayaa wuxuu bedelay jirkiisa iyo xitaa gurigiisa oo dhan. runtii waa qiso aad iyo aad u argagax badan oo ku dhacday wiil dhalinyaro ah. haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato, muuqaalkana aad like saarto.